wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka wacyi waxaana idila socodsiinaysaa anigoo Saciid Cawiifa wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa kulan kula qaatay magaalada Gaalkacyo gudiga amniga gobolka Mudug kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka iyo degmada Gaalkacyo ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo ka hortagga cudurka coronavirus wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Dhabanacad ayaa faahfaahin ka bixinaya Puntland aanu ku galay shir gudiga amniga gobolka xildhibaanada Puntland xubno ka tirsan iyo anaguba waxaana uga wada hadlaynay qodobo runtii aad muhiim ah oo ku saabsan amniga gobolka iyo xaaladihiisa gobolka jira waxa si gaar looga hadlay xaaladda corona oo sida la socotaanba gudaha Puntland ay kor u kacayso ama ay soo siyaadayso kaysaska ama dadka u xanuunsan xanuunkaas oo si maalinla baaritaanada la sameeyo ay tiradu kor u siyaadayso dadka laga helayo ilaahay hanaga badbaadiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inta uu xanuunsan in ilaahay caafiyo inta caafimaadka qabtana ilaahay uu ka qabto halkan maanta waxaan uga wada hadalay sidii loo dardargelin lahaa wacyigelinta ku aadan corona iyo la dagaalankiisa iyo dadka sidii lagu gaarsiin lahaa waxyaalaha ka soo baxayna waxa kamid ah in maamulku ay la shiraan hadii lahay culimada gobolka oo heshiis midaysan laga gaaro sida loola dhaqmayo dadka uu xanuunku ku dhaco iyo khaasatan dadka uu dhinto waxa jira case hadda u dhintay xanuunka corona ee magaalada Gaalkacyo dadkii ehelada ah oo hayay iyo hab dadkii aasayay intuba in xanuunkii ay la daadsan yihiin marka waxaan halkan ka direynaa fariina arintaas dadku inay taxadar badan sameeyaan waxa jira culimo hore uga hadashay habka dadka u dhinta corona loo aasayo waxa jira hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo sida looga hadlay habka loo marayo iyo dariiqooyinka iyo sida loo aasayo kuwa xanuunsan sida loola macaamilayo iyo kuwa dhintay sida loo aasayo oo loo maaragtay loo xabaalayo waxaan rabnaa marka insha Allah maamulka ayaa culimada isugu yeeri doona waxaana jira barnaamijyo ama hab la rabo in insha Allah la isla fariisiyo si aynu u yareyno dadku inay kala qaadayaan ama xanuunkii sii fidayo cidii uu ku dhacana aynu hubino inuusan halka dhaafin hadii la haydmo waxaan leenahay intii dhibatana Allah u naxariisto samir iimaan Allah ka siiyo dhammaan inta ka dhinteen inta xanuunsanna Allah caafiyo dadkana waxa la rabaa wacyigelintii iyo amaawiirtii hore u soo baxday dawladda uga soo baxday in la hirgeliyo dadku inay kala fogaanshihi sameeyaan dadku inay maaragtay afxirkii ay qaataan oo waliba afxirka aad loogu dadaalo ama face mask waxa la yiraahdo in gacmaha la iska dhaqo oo dadku ay maaragtay ilaaliyaan maxaa la yiraahdaa gacmo dhaqashada taliyaha cusub ee dhawaan loo magacaabay ciidanka madaxtooyada Puntland ayaa xilkii la wareegay kulan xafladeed xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta ciidamada ee madaxtooyada Puntland ayuu xilka kula wareegay taliyaha cusub waxaana halka marka laga soo kala jeediyay hadallo munaasabad xil wareejin anigoo ah taliyihii hore ee ciidanka madaxtooyada dowladda Puntland gaashaale sare Barkad Cabdullaahi Yuusuf waxa xil ku wareejinaya taliyaha dhawaan la soo magacaabay oo ah gaashaale sare Usmaan Umar waxaan ugu baaqayaa dhammaan kana codsanayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee Puntland in ay la shaqeeyaan taliyaha cusub sida aniga la shaqeeyeen inta waxa dheer ciidanka madaxtooyada dowladda Puntland muddadaas sanadii barka oo xilka hayay waxay soo mareen guulo istaba jooga waxay qayb ka ahaayeen sugidda amniga dhammaan gobolada Puntland waxay door firfircoon ka soo qaateen munaasabadihii ka dhacay guud ahaanba Puntland xilliyadii kala duwanaa ee la soo dhaafay ciidanka madaxtooyada dowladda Puntland muddadii sanadii barka ahayd oo aan xilka hayay waxay qaateen tababaro kala duwan kuwaas oo kor loogu qaadayo xirfadooda aqooneed iyo la macaamilka dadka ay u shaqeynayaan ugu furnaalkan annaga maanta shaqo cusub oo mas'uuliyadeenay ka sii weynayana loo diray taasaana ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo halkan joogo mas'uul iyo oo aan la shaqeynayn inuu noogu duceeyo mas'uuliyadaas inuu Ilaahayna waafajiyo waxa ugu fiican oo qofka shaqeeyo magaalada Boosaaso waxaa lagu gubay qaad sharci darro ah oo ay soo qabteen ciidanka booliiska gobolka Bari goobta gubista qaadka sharci darrada ah waxa ka hadlay taliye ku xigeenka ciidanka booliiska gobolka Bari oo goobta ka hadlay faahfaahin ka bixiyay qaadkan iyo tiradiisa
aan ka soo qabanay qaad dhan 185 geed iyo saxiimadahoodii iyo waxoodii qaadkan baddu ka yimaada inta badan bariga waa adkaaday oo bariga waxa weeye waa dhici weyday inuu si sahal ku soo galo hadda wuxuu ku soo galaa xeebaha laga keeno ama Yemen laga keeno ama xaggan iyo xuduudkan meesha Soomaaliland xageeda laga keeno marka qaadkan insha Allah waxa weeye talaabooyin baan ka gudanay laamaha amnigana soo qabtay xalayna goor waa baradii ay ahayd goorta gacanta dawladda soo galay qaadkan coronavirus-kii waa waxa weeye isaga xambaarsan ummadda la dagaalanka hadii la koraya caafimaadka iyo hadii la caafimaad darrada iyo waxa uu xambaarsan yahay la dagaalamayna waxaan u taaganahay oo u idmanahayna waxa weeye bulshadayada wixii caafimaad darrada haday tahay amni darrada haday tahay waxyaalaha noocan oo kala ah aan u mahad celinayna dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay hawlgalkan iyo juhdiga iyo dadaalka ay ku jiraan ciidamada amnigu dhan kasta ay tahay hadii ahaan lahayd hadii la koran yahay mukhadaraadka la dagaalanka mukhadaraadka iyo qaadadka hadii ahaan lahayd canaasiirta iyo al-shabaab iyo daacish iyo qolada amni darrada ka wada magaalada hadii ahaan lahayd dhacdooyinka kale sida degdega ay uga falceliyaan aad iyo aad u mahadsan yihiin maamulka gobolka Banaadir ayaa burburiyay goobo si sharci darro ah looga dhisay magaalada Muqdisho oo ay leedahay dawladda Soomaaliya goobahaana cagafta la galiya ayaa waxay ahaayeen xarumo ganacsi oo laga sameeyo goobo dawli ah iyo goobo markaasi wadada la maro soo galay waxaana badigood ay ku yeeleen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waa kan gudoomiyaha degmada Kaaraan oo faahfaahin ka bixinaya howlgalkan wadin kaga mahad celinaa shaqada maanta aan nagala soo qayb gasheen shaqadan waxaan u haynaa bulshada degmada Kaaraan gaar ahaan wadada isku xirto fagax iyo xaawo casir waxaan ka codsanaynaa bulshada degan inay garab istaagaan ay dalkooda ay garab istaagaan waxaan ku shaqaynayno waa isxilqaan ka soo baxay madaxda sare ee qaranka sidii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waa amar baxay oo ah in laga shaqeeyo bilicda magaalada iyo nadaafadda wadooyinka burbursan intaasba inaan u wada istaagno bulshada shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan hawsha aan u hayno ay maaragtay ay sheeg qaybta ay kuleeyeen ay ka qaataan maadaama ka gaartay gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu yiri amarka uu baxsho waay balad nadiif iyo bulsho nabada intiba inaan wada raadinaan diyaar u nahay baad goobkeedaan ku jirnaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono hadii Ilaahay yiraahdo wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ku saabsan coronavirus bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo 48 saac oo ugu dambeysay waxa soo kordhay 73 xaaladood waxa rag ah 51 waxa haween ah 22 dadkaas waxay kala joogaan Puntland 25 ayaa laga helay Somaliland waxa laga helay 19 Banaadir waxa laga helay 17 Koonfur Galbeedna waxa laga helay 12 da'da inta ay u dhaxayso dadka laga helay 48 saacado ugu dambeysay 20 jir iyo ka yar waxa laga helay boqolkiiba 4 20 ilaa 39 waxa waaye 27 boqolkiiba 40 ilaa 59 waa 44 boqolkiiba 60 sano iyo intii ka weyna waxa waaye 25 sano tirada guud ee dadka laga helay dalkeena waxay gaaraysaa 1357 xaaladood waxa u geeriyooday laba qofood Allah u naxariisto oo ku geeriyooday Somaliland tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tagaysaa 55 waxa ka bogsatay 13 qofood tirada guud ee dadka bogsoodana waxay tagaysaa 148 ku celinayna mar kale in cudurkan in la xakameeyo ay muhiim tahay in la dhowrsado la kala dhowrsado inaanan la salaamin in gacmaha iyo nadaafadda guud dhaqida lagu dadaalo in meelaha ciriiriga la iska haayo in qofka markuu banaanka u baxayo uu baxo hadii uu ka maarmi waayo markuu baxayo uu isticmaalo af xirka ama mask waxa loo yaqaan muhiim ay tahay in laga ilaaliyo cudurka calaamadaha markii la arko qof qabo ama reerka la degan in isla markiiba uu raadsado kaalmo caafimaad taqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka calaamadaha ay bixisay waxa jira nambaro loogu talagalay oo free ah oo qofka wacan karo macluumaadkii cudurka loo sheegi karo in qofka hadduu xanuun dareemo uu raadsado
rug caafimaad meesha ugu dhow inay muhiim tahay mar walba in bulshada lagu baraarujiyo qaybaheeda kala duwan. haatanna daawadayaal xubintii ciyaaraha waqti adag kadib waxaa dib u bilowday horyaalka wadanka Jarmalka ee Bundesliga iyadoo ciyaar xiiso leh dhex martay kooxaha Schalke 04 iyo Borussia Dortmund waxaana ciyaarta laga daawanayay caalamka oo idil. kooxda Borussia Dortmund ayaa goolka loo hormartay ciyaarta oo markaa maraysa 29 daqiiqo waxa uu dhaliyay wiilka wacdaraha caalamka kubadda cagta ka sameynaya ee markaasi Erling Haaland. goolka labaadna waxaa sii raacsaday Rafael Guerreiro markaasi 48 daqiiqo markay maraysayna waxaa ciyaarta waji kale u yeelay Torgan Hazard oo ka dhigay 3-0. intaas kuma aysan joogsan Borussia mar kale waxaa shabaqa soo taabtay isla Rafael Guerreiro waxaana ciyaartu ku dhamaatay 4-0 gool weyn ay ku gaartay kooxda markaasi Borussia Dortmund. ciyaaryahanada ayaa sameeyay kala fogaansho marka ay dabaaldegayeen si ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in aan loo baahnayn buu leeyahay in aynu markaasi si adag u ciyaarno mar walba waxaa naga cad inaanu ku guuleysano horyaalka Premier League. ciyaaryahanadana kuma khasbaya buu leeyahay in ay si adag ugu diyaar garoobaan in horyaalka markaa ay ku guuleystaan. waxaanu la wada soconaa in kooxda Liverpool ay 30 sano kadib ay rajaynayso in horyaalka Premier League ay qaadaan taasoo taageerayaasha kooxda iyo isla kooxdaba ay rajaynayaan in markaas riyadaas ay u rumowdo. xilli lagu soo dhawaanayo waqtigeeda loo bilaabi lahaa horyaalka Premier League England ayaa waxaa markaasi ku soo laabtay tababarka iyadoo kooxda Liverpool kaliya ay u baahan tahay 5 dhibcood si ay ugu guuleystaan horyaalka marka dib loo furo Premier League. Klopp ayaa xidigaha kooxda soo saari doonaan cadaadis weyn marka dib loo furo horyaalka qaaradda amba horyaalka Premier League England. dhinaca suuqa kale iibsiga kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso laacibka kooxda Lyon ee Ryan Cherki iyadoo markaas aad u xiiseynayaan in ay laacibkan la soo wareegaan. Zinedine Zidane shakhsiyan ayaa markaas aad u taageersan Ryan isagoo rajaynaya in uu la soo wareego. Ryan Cherki oo ka soo baxay akademiga kooxda Lyon ayaa loo arkaa mid ka mid ah xidigaha akademiga kooxda soo saaray kuwooda ugu wanaagsan iyadoo tayadiisa xidigii ugu dambeeyay France ka soo baxa ee lagu arkay uu ahaa Kylian Mbappe kadib markii uu 4 gool ka soo dhaliyay tartankii UEFA Youth League 2019-20. Cherki ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay tartamada waaweyn ee Yurub. ciyaartii Lyon ay la yeelatay sanadka Champions League. Ryan Cherki ayaa heshiiskiisii ugu horeeyay xirfad la rasmi ah oo saxiixay Lyon bishii July ee sanadkii hore balse waxay u muuqataa in Man United ruuxeeda ay doonayso inay kooxdaas ay ka soo wadato Ryan. daawadayaal xubintii ciyaaraha waxa u dambeysay warkii koobnaa ee telefishinka Wacyi. intaynu dib u kulmi doono sida ay nabadey.